نبي محمد عليه الصلاة والسلام inoo sheegay waxyaabaha koowaad ee Ramadaan laga helaa inay tahay meel dembiga qofku iskaga maydho misfaat uu qofka muslimka ah xamaamu dembiga iskaga maydho uskagiisa uu ku reebo saawgeed baa xadiiska saxiixaynka ku soo arooray wuxuu nabigu tilmaamayaa man saama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi qofka Ramadaan sooma isagoo rumaysan alle iyo rasuulkiisa iyo aakhira iyo ajarkeeda iyo wixii la faro dhan isagoo rumaysan waxtisaaban ilaahay dartiina u soomaya casrigan aynu maanta nool lahay dee soonku waa iska tiro badan yahay isagoo noocaya soon siyaasiya jiro la yidhaahdo dad baa dowladda ka hor yimo afkay xidheen oo cunaday ka soomeen si ay qadiyaadkooda u muujiyaan soon baa jira dadka badh la isku dhuubo la yidhaahdo miisaanka si looga rido intaas inaanu wax cunin soon baa jira xataa kuwan ay yidhaahdaan malikaatuljamaalka iyo waxa kan aflaamta dhigiya kuwa kan la soomiyo oo la rabo qurux inay ku yeeshaan laakiin kani waa soon ixtisaab ah soon danta laga leeyahay ay tahay in ilaahay dembigaaga ku dhaafo